kormeerkan ay maanta ku tagan wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya xarunta caafimaad ee looga baaray cudurka coronavirus dadka ka imaanaya dalka dibadiisa ee ka soo degaya garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid ay ugu kuurgalayeen howlaha baaritaankaasi looga hortago halista ka imaan karta caabuqa coronavirus ee ka dilaaca dalka Shiinaha waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo ah halka ay ka socdaan howlaha baaritaanka ku sugan shaqaale wasaaradda caafimaadka u diyaarisay inay ku sameeyaan baaritaan dadka soo galaya dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in wasaaraddu ay diyaarisay shaqaalihii ka hortagi lahaa cudurka coronavirus oo halista ku haya adduunka. Isaaka waxaan u nimid airportka inaan kormeerno howlaha caafimaad iyo baaritaan ee ka socda airportka. waxaa joogay airportka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo waqti badan joogay hawsha ma aha hawl hadda bilaabatay hawsha way socotay aniga wasiirka maanta waxaan door bidnay inaan soo marno aan hubinno aan ogaano meeshay wax marayaan siyaabihii loo xoojin lahaa si looga hortago cudurkan coronavirus aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortagi lahaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda duulista hawada immigrationka berri waxaan yeelan doonaa haddii alla idmo shir weyn oo ka baahsan kan oo ay ka soo qayb geli doonaan wasaarado badan oo ay khusayso arrintan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka oo dadaal ugu jirta sidii lagu badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan maanta aan halkan ku soo booqannay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelino berrito sida wasiiradda ay sheegtay shir weyn ayaan isugu imaanaynaa oo dhammaan hay'adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayna duulahaydmo maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan hadda aad confidence ugu nahay ilaa ay hadda inaan fiicannahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto waana isgarab taagannahay dhammaanteen waxaan u taagannahay daryeelka bulshada insha Allah tacaala. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ka hadashay qaar ka mid ah hay'adaha caafimaadka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho kuwaas oo u diiwaan gashanay wasaaradda waxaana ay sheegtay inay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon. isbitaalka Yardameeli waxaa dhistay hay'ad khayriye ah oo dadka macaawinada Turkiga ka soo aruurisay waxaa loogu soo aruuriyay magaca dawladda Soomaaliya iyo dadka masaakiinta ah u baahan abaarihii ay waxyeeleeyeen waagi abaaraha ay dilaaceen ayaa loo aruuriyay isbitaalka waxaa lagu dhisay macaawinadaas waxaa lagu qalabeeyay macaawinadaas sida meesha ka muuqata waa isbitaal loogu galay dadweynaha waliba hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya isbitaalka markaan wasaaradda aniga imaaday waxaan baaritaan waxaan sameynay isbitaalada danta guud dawladda ay leedahay ama danta guud lagu dhisay waxaan weydiinay isbitaalka in aan helno shuruucda ay sheegayaan ee waddanka ay ku joogaan kama weyna sharciga walaalahan Turkida waa dad aad iyo aad noo kaalmeeya laakiin dawladda ayay guud ahaan ka go'an tahay inay daba gasho ay ogaato sharciyada ay meesha ku joogaan. cudurka coronavirus ee ka dilaaca dalka Shiinaha waxaa laga cabsi qabaa inuu ku faafo dunida inteeda kale waxaana dalkeena Soomaaliya uu ka mid noqonayaa wadamada heeganka u galay ka hortagga cudurkaasi. Mukhtaar Cabdi Ciise Macadi warbaahinta qaranka Muqdisho.